waxaan u nimiday shaqaaqadii ka dhacday halkan Gurceel iyo tii Dhuusamareeb ka dhacday ciidamada qalabka sida waajibaad ay leeyihiin kuwana amniga ay ku xisaaban yihiin kuwana difaaca dalka ay ku xisaaban yihiin sidaas darteed kiiskii ka dhacay Gurceel shaqaaqadii ciidanka militariga iyo booliiska ku dhaxmarta ahayd baarisa ka furan maxkamaduna baarisa la furay khubaro heer saraha laga keenay xamar oo baariyaal ah iyo kuwa halka joogaba intaba kiiskaas ka furan kiiska la furay baaristina waa la furay sidaas darteed horta ogaada baaristi wixii dhacay inay bilaabatay ogaada dhiigi meeshaas ku baxana dhiig laga tagama mas'uuliyadda yeela doonta dada yeela doonta ay lugaha la gasho saraakiil iyo ciidanba intaba baarista wixii ku soo baxa waajib iyo talaabo sharciya laga qaadaa sharci waafaqsan sidoo kale waxaan rabnaa ayadana oo baaristu ay maaragtay maxuu ahay ay qabanaysaa shaqaaqadii ka dhacday Dhuusamareeb oo ciidanka militariga iyo booliiska u dhaxaysa ayadana sidoo kale loo baaraa cid ay ku soo baxdana waajibkeeda la fulina la marsiina maxkamaddu waxay u joogto waa dambiyada ka dhaca ciidamada inay dadkii gala inay ay ku qaado way sidaas darteeda maxkamaddu ugu dhax jirtaa ciidamada qalabka sida ciidamada dhamaantoodna waa ciidan qaran waxay leeyihiin waajibaad oo ay tahay inay qabtaan waxay leeyihiin xuquuq ayaga ay tahay waajib in la siiyo laakiin asgarigu markuu waajibaadkiisa uu ka soo baxo xuquuq leeyahay sidaas darteed waxaan rabnaa horta ciidanku inuu ogaado maxkamadda ciidamada shaqadeedii inay bilowday Gurceelna ka bilowday baaristuna ay socoto taas halkaasan uga gudbaa waxaan rabnaa ayadoo dhinac ay iska dilayaan cadawgii Soomaaliyeed ee shabaabka ahay in ciidanku isku dhaco oo ayagu cadow isku arkaan aragtida ciidanka oo sax ma aragtida ciidannimada oo sax ma waxa loo baahan yahay marka askariyow systemka adiga aad askari qaran ku tahay inaad adigu ku joogto wax kaaga roon haba yaraatay ma jiraan adiga dhan sharciyeed ka samaysan tahay inaad isku ilaaliso sharciga iskana ilaalisaa adiga waajibku ah hubka aad wadatiin waa hub qaran adunkuna qaranatiin adunku asgar qaranaatihiin hubkuna hub qaran waa qaranku wuxuu raba kaliya inaad qabatiin bisa laydin keen sidaas darteed awaamiirta kala duwan oo ay taliyaashiinu idin siinayaan inaad qaadataana idinku waajiba qofkii qaadadiidana maxkamada u taal waxaan rabnaa saraakiisha laftigoodu xisaaba ku furan wixii maaray waayay ciidankii loo dhiibay iyo cid maareysaba hal maalin in la is haysto dagaal oo ciidanka dawladdu ay is haystaan oo ay xabada isku ridaan
وقانون كدلك وح خلاف سنوي waxa ciidanimada loo sameeyana kuma jiraan nidaama la yahay maxkamada furan asgari idan kamida hadii qof kala dilo maxkamada ka furan asgarigaas waajibkiisa mari lahayd meel loo dacwooday leedahay waxaan rabnaa asgari hadii wax gaaran ama hal la gardarso ama wax kale ku timaad laakiin hadii asgari idan kamida ay wax gaaraan ama police ha noqdo ama nabad sugid ha noqdo ama military ha noqdo asgari hadii wax gaaraan meel looga soo dacwooda furan maxkamad xuquuqdiisa keenta furan waxay tahay in maxkamadda laga dacwoodo in maxkamadda loo sheego maamulay leedahay asgariga walaxa la gaarsiiyay taliyihiisa in loo sheega muhiim taliyihiisuna inuu meesha asiga ninka ka sareeya oo taliya u sheega muhiim kadibna maxkamadda in lagu dacweeyo muhiim taas horta ogaada bariga kadib qofkii wax la gaarsiiyo maxkamadda iskala maahane qof kale male asgari kasta xaq u leeyahay maxkamadda ciidamada inuu ka dacwoodo sidaas darteed maxkamadiya idin ku dhex jirta qof hadii la gaarsiiyo wixii uga goy lahay maxkamadda waa